السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكرت ما كم تهاي قف سنة كستمركو بلاونا لها سنة كوا سنة كيجا سنة كوا سنة كي إزبدل كحوجنا عن سميلها سنة كوا سنة كي عن بيزنس بلاو لها سنة كوا سنة كي عن جيركي وحكة بدل لها سنة كوا سنة كي عن وحبل برا لها أو هبل عن نقلها. لكن ما لص عطها 2025 إن دمارت 2025 وحكار سنة سدح بلود كلية almost سجال بلود ويكسو دايس so سدح بلا كارسن saddexdan bil waxaan ku bedeli karnaa. I know most of them, most of the people including me in aanan gaarin gooliskii aan rabnay 2025 to be honest. Aniga laba gool bes aa muhiimadeed ay tahay in inta ka dhiman sanadkan aan gaaro. So haddii aad ka mid tahay akhyaarta raba in ay inta sanadkan ka dhiman isdaba qabtaan oo gooliskii ay ugu talagaleen waxyaalihii ay rabeen ay gaaraan, waxaan sameynay challenge cusub oo aan aniga ugu talagalay inay igula xisaabtantaan adinkana aad igula xisaabtamo because qofka kaligiis markuu yahay way adag tahay in uu isla xisaabtamo mar walba waxa laga yaabaa inuu sabiixado nafsada inay u sheekayso in macnaha wax uun inuu istuso oo ersheeg uu ku heli karo ama excuse uu ku heli karo kadibna oo waxay ugu talagal nafsadiisa inuu sameeyo uu talagalay ay noqon weyso. So positionkaas ani waa taaganahay adinkana waa joogtaan. So ma sameyn karnaa inaan iskaashano accountability aan sameysano oo saddexdan bil ay noqoto saddexda bil ugu fiicneed ee na soo marta nolosheena. aniga marar badan aan sameeyay arrinkaas sanadkan laakiin waxaan rabaa mid ka duwan in ay noqoto public. So waxaan xasuustaa 2022gii waxay ahayd sanadkii ugu adkaa oo aan decision qaato. waxay ahayd in wadankii aan kasoo tago saabtiin 2022 waxay ahayd in aan usoo gooyo wadan oo wadankii ahayn waxa iga qabsan doona aanan ogeyn economigayga soo noqonaa aanan ka warhaynin shaqo full time ah haystay oo aan mushaharkayga waxay qaadan jiray business side-kayga uu dhinacii ahaa laakiin go-aanka u adkaa qaato waxay ahayd in shaqadaasi aan u gooyo aan aniga businesskayga focus saaro oo aan noloshayda wax walba soo bixi karo aniga aan manage karo. alxamdulilah arigaas waa ku guulaystay. sababta ugu guulaystay waxay ahayd 7 bilood ka mid ah 2023 7 bilood ka mid ah qolaa ku xirnaa baashaal ma jirin inta badan meel ma aadi jirin kaliya waxaan focus saari jiray businesskayga iyo sidaan ku horumarin lahaa nafsadeeda. waxaan marka ogahay haddii qofka uu asiga focus saaro uu dadka kale ka mashquulo waxay dadka sheegayaan arrimahooda baashaalkooda waxyaalahaas oo dhan because dadkan waa usoo laabanaya dhib ma laha. inta hadda muhiimadda ay tahay waxaa waaye nafsadaada hadda waxa adiga u baahan tahay adiga keliya og cid inta kuu imaado ama waxay kuu soo deganaya ma jiri doono adiga keliya nafsadaada daba qaban karo. So waxaan marka go-aansaday 2025 saddexdan bil ka dhiman waa ogahay goolis far badanaa degsanay aniga aan ku jiro adinkana ku jirtaan gooliskii weli ma la gaarin ogowna sanadka waxaa ka dhiman 3 bilood oo kaliya maxaa xala. So waxaan sameeyay Discord channel oo aan isugu wareersan doono oo aan isula xisaabtami doono dhowr channel oo kala duwan aan sameeyay oo aan ugu talagal doono hadafka. So 3 hadaf ayaa degsanaysaa hadafkaaga ha ahaado mid yar ugu yaraan hal hadaf ha ahaado ugu badnaan 3 hadaf ka badan ma jirto. 3 hadaf aa leedahay 2025 inta ka dhiman inaad gaarto tusaale ahaan in bodigaaga wax ka bedesho in aqoontaada wax ka bedesho in xirfadaada wax ka bedesho all that stuff. sanadkan waa ogtiin sanadkaas xirfadaha waay qofka duusan xirfad leen hoos u kacda shahaada wata iyo jaamacada dhameeyay iyo waxba kuma galayso maxaa taqaanaa waay maxaa samayn kartaa maxaa xirfadoo leedahay xirfad gacan ha ahaato xirfad maskax ha ahaato xirfad af ha ahaato wax yarta ahaato waa in xirfad aa lahaataa. So 2025 saddexdan bil ka dhiman nafsadaada la gaar go-aan ah in aa isxirto qol isku soo xirto qol isku soo xirto kama wada in kaliya inta aan magaalada ka baxdo meel isku soo xirto nin noqoto oo la waayay may focus saar gooliskaaga focus saar maxaa kuu muhiimsan waqtiga ku bixinaysid banaanka maxaa kuu muhiimsan ha ahaado mar walba is xisaabi ogow waxyaalaha marka video series oo noqon doona uu badan doona laakiin hadda waxaan rabnaa video koowaad waaye aan uga hadlayno arrimahan waxyaalaha marka aniga aan iska hadla marka gooliskayga si adinkan hadda waa xisaabsan qof walban gooliska u baahan yahay Discord channelka aan sameeyay linkiga hoos ku soo biir meesha ku soo qor gooliska aan leedahay anigana meesha ku soo sheegayn doona haddana waa idin la wadaagi doona si sanadka markuu dhamaado aan isla xisaabtano ma gaarin all that stuff. So muhiimadeeda ugu weyn waa 2 gool aniga 3 way noqon kartaa laakiin muhiimadda ugu weyn waa 2 gool. goolka koowaad wuxuu yahay saabtiin waxaan sameeyay aniga barnaamij mentorship bixinaa oo dugsiyada.com aan ku bixino barnaamijkaas oo barnaamij aad u weyn almost 150 saac ka badan oo 10 duubnay sanadkii la soo dhaafay oo koorsooyin aad fara badan ah HTML aan kasoo bilawnay oo beginning ah
CSS, JavaScript, and Tailwind, React, Node.js, Next.js, MongoDB, SQL, React, all that stuff. AI engineer or AI dhowr qeyb ah, sidoo kale mobile in app development, all that stuff waa sameynay. macnaha course-ka ka mid yihiin. waxaan hadda dhameeyey marka 80% course-ka waa dhameeyey, waxaa ii dhiman 20% inaan dhameeyo casharadaas aan dhammaystiro. muhiimadeeda koowaad waxay tahay in 20%gaas casharadaas ii dhiman aan dhammaystiro. sanadkan xilli hore aan dhameey karin macnaha course-kaas, laakiin waxaa ii geystay waxay ahayd excuse oo ani nafsadeeda aan siiyey. so waxaan rabaa marka excuse-kaas inaan ka joojiyo oo aan isku dayo in aan focus saaro in 20%gaas ii dhiman inaan dhammaystiro. adinkana inaa igala xisaabtantaan arigaas. goolka labaad wuxuu yahay waxaan tagay body measurement yaa tagay in jirkeyga aan soo xisaabay, because 3 sano lasoo dhaaf aniga waxaan sameyn jiray gymku aa jiray adiga weygii ugu yaraan 3 to 4 times, marka ugu yartaa waa tagi jiray. laakiin muhiimadeedu waxay ahayd inaan u tago goolkaas in bal caafimaadkeyga ku maintain garay, because maanta oo dhan inta badan waa fadhiyaa. so maadaama fadhigeyga uu badan yahay, inaysan igu dhicin in aan dareemo caajis, culays, waxyaalahaas oo dhan, waxaan sameyn jiray marka in jirkeyga aan furfuro, in aalmiitadaas aan aado, in at least 3 maalin 4 maalin aan gymka tago. laakiin marnaba hadafkeyga ma ahayn in jir fiican ha yeeshto, marnaba ma ahayn inaan bodybuilder noqdo, macnaha in aan murqo waaweyn yeeshto, inaan six pack yeeshto, all that stuff xisaabteeda kuma jirin. just caafimaadkaaga ku maintain garaysay. waxaan rabaa marka runtan markaa ka hadlo, mar badan waxaan isku dayay bar in aan six pack yeesho. six pack waa ogtiin xaaladda ugu adag waa marka gymka la joogo, qofka inuu six pack yeesho control xoogan u baahan tahay. nafsadaada waxaa ugu adkaanaysaa si aan caadi ahayn, because aalmiitada keliya maaha, afkiyaa ka adkaanaya. waxa cunaysid waa controle, waxaa afkaaga galaya inaa xisaabisaa laga rabaa. marka qof waahey ah hawshaas kama soo bixi karo. nin haddaa aragto six pack le, nin ixtiraam xoogan leh waa because go-aan caadiheena waqaad aad u isku adkeeyey. marka dhibaatada waxa fahmi karo ninkii arrinkaas sameeyo. so marar badanaa isku dayay in aan caloosheeda wax kala control, laakiin mar kasta waxaa dhacaysa in aan jibiyo arrinkaas mar kasta. so mar kasta marna kuma guuleysan inta jeer oo isku dayay inaan six pack yeesho. so for the first time waxaan rabaa inaan public ka dhigo, adinkana aad ugu xisaabtantaan in aan samaysto six pack, because qofka bini'aadamka markii uu arkaayo in la controlayo, in macnaha salaad imtixaan markaa gelaysa fiiri, imtixaanka haddii macallin ku ilaalinayo dadku ku ilaalinaya isku mid uma gelaysa. so sometimes haddii macallin uusan joogin ama ajaana sesh inaad wax ku feeri karto ama wax ku haween karto, bini'aadam waa sameynay. that's marka ka hadal ma laha. so maadaama hadda accountability uu jiro, adinkana aad i daawanaysaan progresskeyga, kuma dhiira kara marka inaan jibiyo, waxaan qasbanahay inaan is adkeeyo. so waxaan rabaa marka inaa idinka control ila noqotaan, inaa ila xisaabtantaan, anina idin xisaabtamo, so aan sameyno. waxyaala cajiibka waxa ka mid ah measurement ya aaday jirkeyga soo fiiriya. hadda farnaa waxaan maraa 83.7 miisaankeyga aniga. waxaa la iga raba waxay tahay almost BMI-gayga waxaa u noqday 27.2. qofka waxaa laga rabaa ragga ah 24 ilaa 25 ilaa 29 wixii ka badan waa overweight. macna haddii 25 wixii ka dambeeya ilaa 28 waxa waaye fasaxa tahay, which means xilliga laga rabo ama meesha laga rabo 24. ani 24 xataa marow 18 inaad tagaa rabaa marka ugu yartahay. 18 waa hadafkeyga koowaad, waa ilaa 15 inaad tagaa rabaa, laakiin had 3 bil kuma tagi karo 15 I believe. so waxaan isku dayi doonaa in 18kaas aan ku tago 3 bil sanadka ka dhiman oo aan jirkeyga focus ku saaro. adinkana aad ila xisaabisaan footooyinkii waxna la wadaago. hadda jirkeyga qaabkan waaye, foota idin la wadaagaa sidaana ahay. waxaan rabaa marka inaan noqdo insha Allah in body fat-keyga uu jiro. waxyaalo badan waxaa laga soo sheegay cajiib ah oo ani aan u dulqaadi waaye, culays igu noqotay. aniga sanadkeyga 29 sanadkeyga 29 aan ku jiraa. so markii measurement la saaray waxaa ii soo baxay inaan jiro metabolic age-keyga 43. ma aaminaysa anigaas 43 sano inaan jiraa la ii sheegay, which macnaa cimrigeyga ka horeeya. arigaas maxaa keenayo cuntadaadana dheelitirneen iyo waxyaalo badan dhakhtarku igula soo tiriyaa jiro. insha Allah adigan experience waa idinla wadaagi doonaa qofkii dareemaya aniga oo kala dareemaya. aniga markaas arko waxaas leeyahay fine waa fiican tahay, laakiin ma fiicni because aalmiitadeeda iyo cuntadeeda ma dheelitirna. waxaan arkaas ka cunaa wixii oo ii fududaado. maxaa maanta kuu fudud, waqtigaaga maxaa kuu saf garanaya bas ka fikiraa.
kama fikiro cuntada calooshaada galaysa caafimaad miyaa ma fiican tahay all that stuff fikir badan ma siiyo. So marka waxaan rabaa sida ugu macquulsan oo age-kayga aan ugu yaraa karo ani age-kayga inaan ahaado ma inaan ka yaraadaa rabaa macnaha sida caafimaadka jirkaaga inuu fiican yahay in kale aad ka ogaanaysa. marka videoga waxaan focus ku saaray caafimaadka. So qof walba oo developer ah inta badan videoga waxaa daawan doona dad developers ah daawan doona caafimaadkaaga inaad controlsho muhiim jiddan waaye. So insha Allah sanadka inta ka dhiman waxaan rabaa marka inaan soo jaro da'daas oo aniga da'deeda aan ahayn because jirkayga asaas u dhaqmayo wagaas farigayga badan ugu aan aalmiintay laakiin cuntadeeda controlnayn. So cuntada iyo body fatka igu jiro inaan macnaha dib aan u control rabaa. So marka arrinkaas isula xisaabtanno waxaan sameeyay horeyda kugu sheegay Discord channel oo aad ku soo biiri karto oo qayb ah kaga noqon karto muhiimadda iyo saddexdan bil inta ka dhiman sanadka inaad nafsadaada isdaba qabto adigana aad isla xisaabtanto anigana aan kula xisaabtanno adinkana aad ila xisaabtantaan nin walba nafsadaada la gaar heshiis oo ah inaysan ka bixi karin balankaas inta ka dhiman saddexdan sano. goolkaaga ha ahaado mid measurable ah oo ah mid la gaari karo. haddii aad su'aal iska dhahdid ana waxaan rabaa saddexda bil inta ka dhiman inaan $1 million sameeyo macquul ma aha. haddii ay jirto waddo aad ku sameyn kartid waa meesheeda laakiin adoo hadda oo broke ah ama ciyaalka xaafadda inaad aad $1 million 3 bil soo socota ku sameynaa aaday u adkaa doontaa arrinkaasna ma qaada kartid. So isku day goolkaaga ha ahaado wax la gaari karo. gaaridana macnaheeda maaha in waxa haddii aad 3 maalin ama 1 maalin samaysid aad ku gaari kartid lama rabo. ha ahaado wax macquul ah oo haddii shaqo aad gelisid aad gaari karto inay shaqo u baahnaato waayo. Okay, so saddexdan bil estimate garay inaad wax barat maartaa inaad business bilaad maartaa inaad jirkaaga habayso maartaa caafimaad ahaan aad kordhiso murqaaga inaad sameyso all that stuff waxaa la rabaa inaad sameyso. So marka ugu dambeyn waxaa idinla wadaagi doonaa jadwal ku saabsan cabiraada lagu soo sameeyey weightkayga BMI-ga waterka masalka shaashadaa soo saari doona nin walba ah arko. waxaa rabaa marka maalinta ugu dambeyso sanadka ka dhamaanaysa videoga aan isku xisaabin doono in aan arko bal maxaa isbedel sameeyey ma nafsadeeda ma ku fashilmay ma dadka hortooda ma ku ceeboobay all that stuff ina creditkayga aan fiiriyo ee u baahanahay. So adinkana let me know comments-ka inteertaan maxaa goolkaaga uu yahay maxaa rabtaa inaan laga xisaabiyo maxaa rabtaa in hadaf ahaan u gaartid. gabar iyo wiil qof walba kusoo biiri karaa kaliya wiilasha u gaar maahan gabar waa kusoo biiri kartaa wiil waa kusoo biiri karaa challenge-gan. So 3 bil soo socoto challenge-gan diyaar ma u tahay inaad qayb ka noqoto. hadday haa tahay linkiga hoose description-ka ayaan soo dhigi doonaa Discord-ka kusoo biir introduction sameey hadafkaaga iyo gooliska aad leedahay nala wadaag anigana waa idinla wadaagay ayadoo qoraal ahna Discord ayaan kula soo wadaagi doonaa insha Allah. halkan ayaan soo xisaabtami doonaa waxaan soo dayi doonaa in weekly update aan idin siiyo oo video ahaan aan usoo duubno oo aan la socotaan waxa socdo iyo wax markaas aan iska wareysan karno. sidoo kale bille aydan saddexda bil in monthly aan sameyno report oo ku saabsan maxaa noo hagaagay maxaa noo hagaagin. sidoo kale waxaan soo dayi doonaa in Discord channel-ka aan ku sameyno live oo aan iskaga wareysan doono habeenada qaar inaan soo qabano tusaale habeenka jimcaha oo kale inta badan ugu fiican in aan live soo fuulno as update gareyno ninkii markaas isbuucaas xogaar inuu sabiixda dareemo in la soo kiciyo ninkii dhiirigelin oo siibaan inuu hore usii dhiirigelinaado all that stuff. So marka isla xisaabtan rasmi ah oo ku sameynayno buugaas oo marka aniga labadaas gool ay igala xisaabtami doontaan in mentorship uu dhamaado by the end of this 2025 uusan wax igu harsaneyn wixii update u baahan waa meeshaada laakiin in casharada guud aan dhammaystiro 20% iga dhiman iyo sidoo kale in bodygayga aan keeno 18% body fatkayga hadda waa 27 shaqo culus ay taalo 9% inaa meesha kasoo dhimaa laga rabaa. So 18 waa hadda 27 waaye 9kaas inaa soo jaraa laga rabaa. sidoo kale caloosheeda hadda sidaan waaye sawirkaa ujeedaan waa idin soo dhigi doonaa shaashada. waxaa rabaa in ugu yaraan 2 pack meesha ay kasoo baxdo sigii sabta kuma gaari karo waa ogahay 3 bil way adag tahay laakiin at least in labada kore inay muuqato aad u rabaa qaareed aad iyo aad. let's go